hadduu damiir leeyahay oo maskax dowladnimo iyo qarannimo xashaq ay ku jirto shirjaa inta qabto wuxuu dhihi lahaa Soomaaliya daacisha ku soo duushay sababtoo ah ma jirto adduunka 11 qofood oo ajnabi ah oo daacish ah meelay ka sameeyeen weer ismiidaamin adduunka ma dhicin maanta waxay inuu shirjaa qabto soo istaago oo yiraahdo Soomaaliya waxa ku soo duulay daacish laakiin xafiiltan kala dhaxeeya Siciidani siyaasadeed iyo madaxweynaha uga aamusan yahay oo ayaan daro wuxuu u duulay Addis Ababa soo soo raali geliya Abiy Ahmed soo kama fiicnayn inuu waliis Soomaali raali geliyo oo ka dago deegaanada Soomaaliya colka siyaasadeed la yahay intuu nin Etoobiyana hoostiisa tagi lahaa waa la socotiin dadka Soomaaliyeed waxa lagu abaabulay oo guri iyo geedba looga soo bixiyay dhulkeeni cadow qaadanay soo madaxweyne Shariif sheegay baarlamaanka loo shiri mucaaradii muxaafida lagu taageeray hal subax oo diyaarad qaatay waxaan aragnay asagoo Abiy Ahmed la dhaansi garaynayo la qoslay su'aasha waxay tahay ma ninka gardarooda soo hoyda mise ninka lagu gardarooda hoyda Abiy asaa badana soo damcay asaga ciidan ka joogan Ethiopia Soomaaliya asaga u baahan ciidanka Africa Union in loogu daro asaga ma anaga hoyanayna aabta iyo sumcad darrada meesha ka dhacday Ethiopiankana maanta ay ku damaashadayaan waxay tahay in horta ayaga loo hoyday mana qariyaan ninkii lagu gabood falaa loo soo hoyday dhahan waxay kala xaqiijiyeen inaanan dad hoggaanka Soomaaliya la isku halay karin lana fila karin meesha u socdo oo dawladihii kale ay la yaaban yihiin oo shalay madaxweynaha u orday heshiiska alliance-ga la soo galay madaxweynaha wuxuu nagu riday runtii sumcad darro kaliya maaha indhaha beesha caalamka iyo dawladaha gobolka iyo dadka Soomaaliyeedba si liidasho ah ayuu runtii uga dhacay indhahooda waxaan rabaa inaan markasta xoogga saar arinta dhulka dad badan baa waxay isleeyihiin dhulka ay dawladda gadayso oo maalinba la iibinayo hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadayo guddiga doorashada waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran Villa Baydhabo waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid isbitaal Martini waxaana badbaadsan oo miiska waxaa la qaatay hadeertaana ogtihiin dhulkii jaamacadda gahayr ay lahayd oo dad masaakiina laga qixiyey soo lama oga dadka internet displaced-ka ee barakacayaasha gudaha ku soo qaxay ee xarumaha qaranka degan waa dad Soomaaliyeed oo barakacayaal gudaha la yiraahdaa adduunkana xuquuq sharci ku leeyihiin dalkana xaq sharci ku leeyihiin intii dib u dejin loo sameeyo cagaf waxa laga adeejiyaa ciidan booliis ah dhulkan ayaa la siiyaa ganacsatada laga iibiyaa warkuwaas ma in Ilaahay ka cabsanaynin